kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo joogtaan qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaal culus oo khasaare ba'an geystay oo laga soo sheegay duleedka magaalada Gondar ee caasimadda labaad ee gobolka Axmaarada. jabhadda Ola xoreynta Oromiya oo sheegtay deegaano badan inay ka sifaysay militariga dalka Itoobiya maxaabiis badan ay ooda ka sii deysay. khilaafka weyn ee laga soo sheegay dowladdeegaanka Soomaalida iyo dowladda federaalka Itoobiya inuu soo dhaxgalay. qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah mudaharaadyo waaweyn oo khasaare ba'an geystay ayaa waxay maanta ka socdaan gobolka City ee dowladdeegaanka Soomaalida. sidoo kale dowladdeegaanka Soomaalida saaka waxaa looga dareeray kaarka qaadashada codaynta degmooyin badan oo ka tirsan dowladdeegaanka Soomaalida. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan. taariikhdu waxay ku beegan tahay 1 bisha 9 2021. haddaynu u guda galo wararkeennii oo faahfaahsan, magaalada Gondar ee caasimadda labaad ee gobolka Axmaarada waxaa laga soo sheegayaa deegaano ku hareeraysan oo saaba uga fogeyn inay dagaal la xooggan ku dhex marayaan kooxda TPLF iyo huwanta dowladda federaalka hogaaminayso. huwanta ay dowladda federaalka hogaaminayso ayaa waxa ay sheegeen in ay guulo waaweyn ka gaadheen dagaalo ay la galeen kooxda TPLF. huwanta ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay inay kooxda TPLF dagaalo culus ku soo qaaday deegaanadaas ku hareeraysan magaalada Gondar. hase yeeshee gebi ahaanba ciidamadii TPLF ee weerar ka soo qaaday inay cagta la mariyo wax dhumayo wax dhaaraacay laga dhigay. sidoo kale kooxda TPLF ayaa waxaa la sheegay inay maalmihii ugu dambeysay weerar qaadaysa ay hase yeeshee ay marnaba ku guulaysan inay jabiso ciidamadii halka joogay. ciidamada federaalka iyo huwanta ay hogaaminayaan ayaa waxay isku dayayaan inay deegaanada ay kaga suween kooxda TPLF in ay ka sifeeyaan. hase yeeshee ma moodid inay ku guuleysanayaan arintaasi maxaa yeelay kooxda TPLF hadda waxaad moodaa inay dagaalo badan meelo badan kaga furan yihiin sida gobolka Axmaarada iyo Canfarta. ayaad wada TPLF inay dadaal weyn ka wado si ay khalkhal u geliso dowladda federaalka Itoobiya. sidoo kale waxaa la soo sheegayaa labada dhinac inay midkoodna sameeyeen horumar weyn oo ka gaareen dagaalada xooggan ee u dhaxeeya militariga dalka Itoobiya iyo kooxda TPLF. kooxda TPLF iyo dowladda federaalka ayaa dagaalkoodu dagaal hadda uu noqday iska caada sida ay sheegayso warbaahinta dalka Itoobiya. sidoo kale TPLF ayaa waxa ay sheegtay inay marnana ka quusan doonin dagaalka ay kula jirto dowladda federaalka ilaa ay dowladda federaalka ku soo laabatay miiska wada hadalka. dowladda federaalka ayaa iyadu marna sheegtay inay dhag jalaq u siinayeen hadallada TPLF ka soo yeedhaya, hase yeeshee ay ku qasban yihiin markasta inay sharciga u hoggaansamaan. hadday sharciga u hoggaansami waayaan in TPLF la horkeeni doono cadaaladda loo soo horkeeni doono. sidoo kale militariga Itoobiya ayaa waxa uu sheegay TPLF inuu marna dagaal laba gelin. TPLF-na ay tahay koox yar oo ku dhuumaalaysanaysa gobollo ka mid ah dalka, sidoo ugu dhaqsaha badanna sharciga la horkeeni doono. sidoo kale waxaa la soo sheegayaa inay khilaaf weyn soo kala dhaxgalay dowladda federaalka iyo maamulka dowladdeegaanka Soomaalida. maamulka dowladdeegaanka Soomaalida iyo maamulka Canfarta ayaa dagaalo xooggan ka dhaxqarxeen usbuucyadii la soo dhaafay. hase yeeshee wali lagama gaarin wax hal ah oo dagaalkaasi lagu soo afjarayo. sidoo kale dowladda federaalka ayaa in badan waxay isku dayday inay dhexdhexaadin ka gasho dagaalada xooggan ee u dhaxeeya dowladdeegaanka Soomaalida iyo maamulka Canfarta. dadka u dhuntalola siyaasadda ayaa waxa ay sheegayaan inay maamulka Canfartu dowladda federaalka si ay ka haystaan taageero weyn oo markasta oo dagaalkan ama ku guuldareystaan ama ku guuleystaan inay dowladda federaalka garab ku siinayso. dagaaladan xooggan ee ka socda galbeedka gobolka City ayaa waxaa la soo sheegayaa inay khasaare ba'an geysteen. shacab aad uga badan 10,000 oo qof ayaa waxay ka soo barakaceen magaalooyinka lagu dagaalamayo. welina ma jirto wax heshiis oo laga gaaray in dagaalkaasi lagu qaboojiyo ama dhiigga qubanayaba lagu baajiyo.
hase yeeshee waxaa la soo sheegayaa inuu khilaaf weyn arrintaasi keentay dowladda federaalka iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida. warbaahinta xalay ayaa isla dhaxwaday inay dowladda federaalka codsatay in ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida laga celiyo dagaalka gobolada ay ka wadaan ama deegaanada aad ay ku sugan yihiin oo lagu celiyo dhulka ay ka soo duuleen kadibna miiska wada hadalka la isku yimaado. hase yeeshee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa arrinta la sheegay inay ka gows qabsatay ayna sheegtay inayna marnaba dhici karin arrintaasi. gobolkan oo dagaalo waaweyn ka dhaceen dad badan ay ku dhinteen ay dowlad deegaanka Soomaalida u aragtaa hadda inuu yahay waqtigii ugu dambeeyay gacantooda ay ku soo noqon lahayd magaalooyinkii waaweyn ee hore sharci darrada loogu wareejiyay gobolka Canfarta. dagaaladan ayaa waxaad moodaa maalinka ka dambaysa inay ka sii darayaan. hase yeeshee weli dowlad deegaanka Soomaalida mayna gacantiisa soo gelin magaalada Garbaciise. waxaa la soo sheegayaa magaalada Garbaciise inay xaafado kamid ah ku sugan yihiin ciidamada Canfarta kuwa dowlad deegaanka Soomaalida ay dhufaysay waaweyn ka qoteen magaalada hareeraheeda. sidoo kale dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxay isku dayaysaa inay dagaalkani qaboojiso wax kasta oo ku qaadataba iyadoo la soo sheegayo inay saraakiisha ciidanka liyu booliis ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo madax badan oo dowladda ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa ayna lagala hadlayo arrintan si lagu qaboojin lahaa. dowladda federaalka Itoobiya ayaa mar hore isku dayday inay dagaalkani qaboojiso hase yeeshee mayna ku guuleysanin. sidoo kale hadalka xalay soo yeedhay ayaa bulshadu waxay hadaladooda ugu badnaa inay dowladda Itoobiya Canfarta ku wareejinayso dhulkaasi dowlad deegaankana loogu hanjabay inay dhulkaasi ka baxaan. hase yeeshee deegaanka Soomaalidu arrinta dhag jalaq mayna u siinin. sidoo kale mudaharaadyo xoogan ayaa waxaa laga soo sheegayaa gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida. mudaharaadyada oo looga soo horjeedo dagaalada ka socda gobolka Canfarta iyo Soomaalida xadka u dhaxeeya oo lagu taageerayo deegaanka Soomaalida. mudaharaadyada ayaa waxaa la sheegay in lagu gubay calamo badan oo ka tirsan dalka Itoobiya khaasatan ka federaalka. dadka ayaa waxay ku dhawaaqayeen dowladda federaalka ay cadaalad kama shaqeynayso dhaxdhaxaadna kama aha dagaalada socda waxayna la safadahay kooxda Canfarta. shacabkan ayaa waxay ku baaqayeen in dib loogu celiyo dhulkoodii ay ka soo qaxeen maamulka Canfartana ay dib uga noqdaan dhulkooda. dhulkana uu yahay dhul Soomaaliyeed marnana ay yeelaynin dhulkaasi in Canfar lagu wareejiyo. dadka Soomaaliyeed ee Canfarta lagu wareejinayo ma aha dad doonaya dalka Canfarta ama dhulka Canfarta inay ka mid noqdaan. waa dad la qasbaya mana yeeli doono qori bana ka xignaaya dhimasho. dagaaladan soo noqday ayaa waxaa la sheegayaa inay 100,000 oo qof ay ku dhimatay ilaa waqti dheer ay soo jiitamayeen. sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida saaka waxaa looga dareeray kaarka qaadashada codaynta kuurada gobolada lagu soo noqday doorashada waxaa kamid ah magaalada Jigjiga, Qabri Dahar iyo Goday. kuuradan dib loogu noqday ayaa waxaa la soo sheegayaa inay shacab weyn maanta ka soo qayb gelin hase yeeshee inay meelaha bar la arkayay codaynta oo ka socota iyo qaadashada kaararka. xisbiyo badan oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ilaa shalay ku dhawaaqayay inay ka hadheen doorashada lamana cayimin ilaa waqtiga ay kuuradan soo dhamaan doonto. hase yeeshee waxaan la ogeynay dowlad deegaanka Soomaalida doorasho ka dhici doonto ama ay xisbiyadu ka wada qayb gali doonaan. tan iyo kulanti dambe wanaagsan. salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.